السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلام يا أصحاب الجنة كي كحرن أصحابي عاو وحن سوق عدنينا يعني نعضو كدعضي وطن كاس إيران أي وحكا قرين جرائدة عالم كقوة يعني وحكا قرا دنبي دتك عن كديجلياش عالمك أما دنبي ذا وين قاله جرائدة وحكا قرا أيا قصة سوقاتي قصة أيا وحي كدعضي مجال اللي يراهدي يسوج أي وطن كاس إيران xarunta booliska ee magaaladaas ayaa maalmaha kamid ah waxaa soo galay nin qaylinaya oo ku haya icaawiya yani please icaawiya nin ku haya iga soo gaara baa soo galay yani haddii askarta ay ninkii kusoo yaaceen waxay arkeen nin iyo naag sii cararaya ninkii naagtii ayay maarata askarta qaybtood yani ceyrsatay si usoo qabato aduu ninkii iyo naagtii markii lasoo qabtay yani qof boqol baa lagu wareystay يعني iyo ninkii markii hore yani caawimaad dalbanayay yani ninkan wuxuu yiraahday ninkan iyo naagtii isla socdo yani ninkan naagtan isla socdo hadda aan ka soo cararayay waxay suubiyeen yani midi ay barta ay galiyeen wax weyn ima gaarin laakiin waa tuugo yani qab yani tuugo amal yani inay wax xadaan beerabeen anigana idilaan saas u sheegay ninkiina gooni ayaa loo wareystay asna wuxuu yiri ninkaas arkiisaan oo yani oo hadda yani anagoo ceyrsanayna aad soo qabateen wuxuu damcay inuu kufsado ama ku xadgudba xaaskeyga ayuu kufsaday buu dhahay uu damcay wuu kufsaday ayuu dhahay yani markaan joognay magaaladan Yaasuj baanta asaga ka qaadanay gaarigiisa taksi ahaan ayaa waxaan ku tagnay Shiraz yani Shiraz markaan joognay magaalada la yiraahdo ayuu xaaskeyga saas yani uu kufsaday saasa dhacday ayuu dhahay yani ninka naagtiina gooni ayaa loo wareystay iyadiina waxay tiri ninkan yani inuu kufsado yani isku dayay yani inuu igu xadgudbo ayuu isku dayay askarti way weydiisay waxa la yiri markuu kufsaday may ayay tiri laakiin inuu kufsado ayuu isku dayay already way kala hadleen aduu waxay yani baaritaankii socdo askartiisa yani u baaraysay aakhir yani ninkana yani tagsiilahana wuxuu meesha la soo istaagay aniga yani wax aan dambiyo galay ma lahan dadkan waan qaaday haddaan qaadayna dhibkaas ayay ii geysteen yani waxaan dareemay buu yiri yani sheekadooda baan maanta dhan ishaan ku hayay yani muraayad ayaan ka fiirinayay markii dambe waxaan arkay wiil naagto midida sa ay u dhahaysa iska qabashada iska qabtayna gaariga horaan ka istaajiyay yani anigana wuxuu yiri markii horeba dadka waa ka shaqiyay oo magaalada yani meelaha maarata yani xooga cilada ma maray magaalada bartankeeda ayaa marayay يعني gacantaas ayaa wax iga gaareen adu garabka adu waxa la wareystay waa la arkay inay kala hadleen waana loo sheegay askartii dad kuwa dambiyada baarayay way u sheegeen yani inay maaragta xogta naagto sheegtay wax walba waa la kala khiyaanay adu markii dambe ninkii ayaa wuxuu yiraahday way dhacday wiir anaga arintan waa sameynay laakiin anaga ani xaaskeyga dhibkaas ani xaaskeyga waa 22 jir يعني أنا waxaa ahay nin 3 sano jira maxaa nagu kalifina arintaas sameeyna weydiiya hal la yiri ina hadashan ayaa loo baahan yahay waxay dhaheen shaqo la'aan ayaa nagu dhacday dad wax bartay ayaan nahay dhan walba lacag waa ku raadinay irsiq yani way noo suurtageli weyday yani inaan helno yani maaragta dhaqaale ama lacag nagu filan way noo suurtageli weyday sidaas darteed ayaa waxa ku fikirnay qaabka inaan ku shaqeysano tuugnimada ah waxaana sameynay ayuu yiri hadda ka hor nin ayaa tagsiil ah ayaana waday ninkii tagsiilaha ahaa markii arkay yani inay dambiga ku cadaatay ayay qiraal sameeyeen yani ninkii ayaana qiraal sameynaya hadda ka hor wuxuu yiri nin tagsiila ayaa maaragta na waday ninkiina waxaan sameynay biyir markuu meel yani duur ahna marinayo ayaan midi dhabarka ka gelinay waa dilnay gaarigiisi ayaan saas ku soo qaadanay si aan gaariga u iibisano waxaan ku qasbanaa inaan suuqa madow keeno yani hadii kale waana la soo tixraacaya askarta ayaan ogaanaysa suuqa madow ayaan keenay suuqa madow markaan keenay yani waxa dabcay in laga gato maadaama gaariga uu ahaa gaari taksi ah yani nooca taksiyada loo isticmaalo uu ahaa nin taksiila ah ayaa dabcay wiir suuqa madow nooga iibsado wuxuu yiri gaari yar oo wuxuu watay wiir gawaarida maarta yani lagu xaragoodo aan taksi shaqo ahayn wuxuu yiri يعني halkaas yani gaarigii tuku baakintay ayuu meel buu tuku baakintay ayuu wuxuu yiri soo baxa si aan gaariga iskaga soo tijaabiyo waa idin raacaya
aduu markuuna raacay baan yani markii hore gaariga anaa waday cabaar baan markaan waday ayaan ka digay oo wuxuu yiri meel xoogaa fog geeyay ayaan ka digay asaga waxaa eri gaariga raac yani wad anagana gadaal baan iyo xaaskayga galnay sida qorshaheenu ahaana yani ninkaas yani ina anaga aan dilna ayaa rabnay ninkan wuxuu waday buu yiri lacag maaragtaa ii sheeg yani markii wax la kala iibsanay lacag horumarin ah ayuu waday oo lacagtii aan ku heshiinay 3 meelood 2 meel ayuu watay ma fahamtay adigu wuxuu sameeyay yani gaarigii ninkii markaa uu darawalkii uu waday ayuu yiri oo adigu wuxuu yiraahday markii yani gaarigii ninkii darawalkii aan yani uu gaariga kaxeeyay oo meel dhexe uu marinayo oo aragnay inuu meel aan isaga ku dili karno uu marayo ayaan bartaas waxaan ka gelinay buu yiri surka ah tooreydii waxba kama tarin yani wuu dhiig baxay laakiin ma dhiman gaariga ayaan ka tuurnay meel yani jar weyn oo hadaan ah ayaan ka tuurnay ayuu dhahay oo buunda camal ah ayaan ka tuurnay dhahay oo yani wabiyada I don't know wabi hoostiis biyaha adu meel dheer ayay baan ka tuurnay ayuu dhahay meeshii ninkii waxaaba sii fiirshiir asagoo cabaadaya oo wali aan dhiman jajabay wali nool asagoo aan toorey ku dhufanay meeshaas dheer yani ka tuurnay ma dhiban ayuu dhahay markaas ayaa waxaan ku qasbanaaday buu yiri waa arinta ugu naxdinta badan qisada waxaan ku qasbanaaday buu yiri inaan ta hoos u dago ninkaas aan isa soo raaciyo si uu ii soo sheegin hadhow hoos ayaa u daadagay buu yiri xaaskayga kor oo meesha joogta iyo lacagtii iyo gaarigii haysa ayaa ani hoos u daadagay hoos marka u daadagay ninkii ayaa soo qaylinay caawi please caawi kuma sheegay uu haya yani waxaba i badbaadi naftayda oo soo ku haya ayaan dilay buu yiri oo israaciyay waana ka soo tagay meeshaas wuxuu ku marayaa 2 taksiile oo 2 darawal ayuu soo dilay waa yani darawalkii markii ugu horeysay oo yani uu taksiga ka soo qaatay uu soo dilay iyo kan oo yani uu lacagtii u waday labadaas darawal ayuu saa ku dilay aduu ninkii wuxuu yiri kor ayaan soo karay gaarigii ayaan soo wadanay oo yani taksiga aan ninka ka iibsan lahayn iyo lacagtii oo saarnayd ayaan soo wadanay waxaan soo aadnay ayuu yiri meeshii yani aan ku ogaa gaarigii uu ninka ku bakintay gaarigiisi yani gaaridan maaragta raaxada oo yani qofku aan gaarida shaqada ahayn yani meeshii uu gaarigiisa ku bakintay ayaa ogaa buu yiri meeshii ayaan tagnay buu yiri gaarigiina waa ku darsanay labadii gaarina sidaas ayaan ku iibsanay wuxuu yiri marka sidaas ayaana lacag ku helnay adiga haddana wuxuu yiri ninkan magaaladaas uu naga soo qaaday magaaladan ayuu naga qaaday wuxuu noo waday magaalo Shiraz la dhaho magaaladii markuu nageeyay chance ayaan ku weynay aan ku dilno markaan soo noqonay ayaa xaskayga yani midid ku dhufatay uu nala dagaalamay ilaa uu yani uu xarunta booliska yimid saas ahayd ayuu yiri qisadeena adoo ninkii saas uu qartay naagtiina sidoo kale ayadana way ka kacday wixii haysay way sii deysay waa qaratay markii horena waxay ku qirteenba waxay ahayd askarta ayaa kala khiyaantay oo yani qaraal ay sameeyeen asxaabi adiga ninkaas iyo naagtaas saasay dambiilayaal ku ahaayeen oo dadka u dili jireen oo waliba uga qaraamin jireen askarta yani uga qaraamin jireen taksiilayaasha iyo darawalada sidii ayaana maarata loo xukumay waxaa lagu xukumay yani toogasho labadoodiina yani waa la toogtay ninkiina sidii ayaa lagu sii daayay oo yani oo lagu daaweeyay labadoodiina toogasho ayaa lagu xukumay markii la baaray yani ninka markuu qirtay oo naagtay ninkan markay qirteen gurigiisa ayaa la tagay cadeymihii labadii yani darawal ay dileen ayaa laga soo helay oo lagu soo arkay yani sidaas ayaana maaragtaa lagu xukumay dil loogu xukumay labadoodana yani loo toogtay oo dil toogasho ah lagu xukumay qisadana asxaabi intaas ayay maaragtaa ku ekeyd yani intaas ayaa maaragtaa qisadan kusoo koobaya intaas ayayna ku dhamaatay intaa qisadan qisa lamida iskaga kulmayno insha Allah iskaga imaan doona asxaabi waxaa idin leeyahay fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh